السلام عليكم. duhur casar habeen galab xilli kastoo ku tahay wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin. caawa waxaan soo gudbinayaa 40 xeer oo nolosha ah. 40 xeer waxa dhigaya dhiganaha waan ku salaamay saaxiib ee uu qoray Adham Sharqaawi isla markaana uu turjumay oo Soomaaliyeeyay aadan sahan ku soo dhawaada. wuxuu ku bilaabayaa waan ku salaamay saaxiib waxaad weydiinaysaa in noloshu xeer leedahay. waxaan ku leeyahay noloshu ma timaado iyadoo wadata buugaaga ah oo qaababkii lagu noolaan lahaa ku tilmaamaya, laakiin inaga ayaa buugaas hagaha samaysan karna inagoo ka soo dheeganayna wixii aynu baranay, aragnay, maqalay ama aynu goobjoog u ahayn. waxaan isku dayayaa inaan hadda halkan kuugu soo ururiyo xeerar. ma sheeganayo inaan kulmistay xigmadii ummadihii guunka ahaa iyo kuwan ugu ee dadka kale ayaan la mid ahay oo doqonnimooyinkayga iyo gafafkaygaba waan leeyahay. laakiin mid ka mid ah xeerarka nolosha ayaa ah inaynu wax ka baranno gafafkeena iyo doqonnimooyinkeena in ka badan intaynu wax ka baranno dugsiga. ha noqdo xeerkaasi xeerka koowaad. xeerka labaad, dadka wanaagsan ilaahay qaar la mid ah ayuu u sakhiraa. ilaahay waa caadil saaxiib. noocyada cadaaladiisa waxaa ka mid ah in had iyo jeer abaalmarintu ay la siman tahay ficilka ee noqo qof wanaagsan. dad wanaagsan ayaa lagugu irsaaqayaa. xeerka saddexaad, qofka ilaahay tala saarta uu ku filnaadaa. qofka dadka miciinka badana iyaga ayuu farxa uga qaadaa. marnaba ma hilmaamayno in Ibraahim nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee markii la saaray manjiiqa ee wax yar kadib lagu tuuray dabka oo isagoo qalbigiisu uu sugan yahay ku celceliyay ilaahay ayaa igu filan, isaga ayaana cid la wakiisho ugu mudan. ilbiriqsi kadibna nabi Ibraahim nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee hawada ayuu sii duulayay. waxaana markaaba u yimi Jibriil oo weydiiyay inuu wax u baahan yahay in kale. waxa uu Ibraahim ugu jawaabay adiga waxba kaagama baahni, laakiin ilaahay isaga ayaa xaalkayga u ogaal badan. markaasuu allaha xaalkiisa sida dhabta u ogay dabkii amar ku siinaya inuu qabow iyo badbaado u noqdo Ibraahim ee qalbigaaga mar walba ilaahay ku xidh. xeerka afaraad, qofka mahadnaqa joogteeya nimcooyinku way isaga dambeeyaan oo kama kala go'aan. ilaahay wuu jecel yahay oofinta saaxiib. wuu jecel yahay ilaahay addoonkiisa mahadiya inuu wanaagiisa arko. waanu jecel yahay in wanaagga ay dadku isku samaynayaan uu arko oo u maamuuso. ma garanaysaa sababta waalidinkaarnimadu ay dambiyada waaweyn uga mid tahay? sababtoo ah waa abaaldhac iyo wanaaggii oo lagu caasiyey. ma jirto cid ilaahay ka oofin badan kana oofin jeceli. haddii aad doonayso in nimcadu ay kuu waarto, wanaaji mahadinteeda oo carabkaaga iyo xubnahaagaba ku mahadi. ka dhig mahadnaqa maalka uu ilaahay kuugu deeqay sadaqo. aqoonta uu ilaahay ku siiyeyna inaad dadka barto ka dhig. aragti samaanta uu ilaahay kugu manaystayna dadku markay wareeraan inaad kula taliso oo aad ku qumiso ka dhig. caafimaadka aad haysatana mid xaqa aad ugu adeegto mahadnaqiisa ka dhig. mahadintu maaha carabka oo qura ee waa hab nololeed. xeerka shanaad, qofka xilliga uu barwaaqaysan yahay ilaahay gartaa. xilliga ay waayuhu ku adkaadaan ayuu ilaahay gartaa isagana. mahmahaha ayayooyinka wanaagsan ee tusaalaha loo soo qaato waxaa ka mid ah in qofka aan ilaahay si dhaba u garanin marka ay waayuhu ku adkaadaan mooyaane inta kale uu la mid yahay sida xamaalka marka uu rar culus qaado uun ilaahay xasuusta. waa dhab inuu ilaahay yahay cidda aynu eeranno ee xaaladaha adag aynu ammaansanno. kacaakufka nololeedna ay taagdarrideenna ina dareensiiyaan oo aynu ugu cararno dhanka rabbiga awoodda weyn ee karaanka badan. balse waxay isweydiin mudan intii aynu barwaaqasnayn ilaahay ma xasuusannay? ma u sii dhiibannay kaydu xilliga adag dib inoogu soo celiyo? ilaahay waxa uu yidhi markii uu ka hadlayay nebi Yuunis oo micnaheedu yahay haddii aanu ka mid ahaan lahayn kuwa alla xuska iyo tasbiixda badan waxa uu ku nagaan lahaa caloosha nabiriga ilaa maalinta laga soo saarayo ee qiyaamaha. xilligii uu barwaaqaysnaa ayuu cibaadada ku dadaalay, tasbiixsiga iyo xuska ilaahayna uu xejistay. markii xaalku ku adkaadayna ilaahay ayaa u oofiyey camalkiisaas. yaanu ilaahay kula noqonin sida badbaadada gargaarka degdega ahun ee loo yeedho ee aan marka ay masiibo dhacdo mooyaane mararka kale la xusin. ilaahay agtaada mar walba ha ka joogo kaalinta koowaad ee aan cidina ka horeynin. adiguna ilaahay agtiisa
ayaad mudnaanta koowaad ka yeelanaysaa. xeerka 6 qofka joogteeya istighfaarta albaabada ka xidhan ayaa loo furaa. ibnu taymiya wuxuu odhan jiray masalo fiqiya ayaa albaabkeeda la iga xidhaya oo aan keeni waayaa, markaasaan kun jeer ilaahay u istighfaarsanayaa, markaasaa lay furayaa oo ay igu soo dhacaysa. saaxiib, albaabada kaa xidhan oo dhammi abuurta ilaahay ayay ka mid yihiin, furayaashooduna isaga ayay gacantiisa ku jiraan. qaabka ugu mudan ee aad furahaas ku heli kartaana waa istighfaarta oo aad badsato. haddii uu arrin kugu adkaado, istighfaarta badi, kadibna samee sababihii aad ku helaysay intii karaankaaga ah. barakada waafajinta iyo sida uu ilaahay arrinkaaga kuugu yasirayo adiga ayaa la yaabi doonee. adduunka oo dhammi ilaahay gacantiisa ayuu ku jiraa, ee meel ilaahay ka durugsan ha ka raadinin. xeerka 7 adiguna naftaada qof ha ku qasbin, adiguna qof ha isku qasbin. u daa qalbiga cidda uu gacloodo saaxiib. hagaaji la dhaqanka dadka oo u madax buuxi, qof dabacsanaan noqo. akhlaaqda dadka maamuusan weeyaan dabacsanidiye, laakiin ha ku odhanin qofna waan ku jecelahay adigoo aanay kaa dhabahayn. inaad qof jacayl kuu sheegtay ka diidaa waa dhaawac xanuun badan, laakiin way ka dhaawac yar tahay inaad qof rajo geliso adigoo og inaanu qalbigaaga boos ku lahayn. go'aan yeelo, sidaas ayaa adiga iyo isagaba idiin wanaagsane. biyaha qalbigaaga ilaali oo ha ku waraabin geed dhintay. jacaylka halka dhinacahi waa dulilnimo, qofka wax caashaqsanina wuu dabacsan yahay, laakiin ma dullaysna ee labadaasi yaana iskaga kaa darsamin. xeerka 8 qaabka qura ee aad jacayl ku helaysaa waa inaad adigu bixiso. jacaylku waa beer kuu soo gooday oo aad goosanayso saaxiib. si aad beer u goosatana waxa mahuraana inaad marka hore sii beerato. inta aanad isweydiin nasiibkaad jacaylka ku leedahay, isweydii horta maxaad adigu jacayl bixisay ee aad sii horumarsatay. danaynta waxaad ka helaysaa markaad horta sii beerato adigu. badanaa dadka kale waa falcelinta waxaynu inagu samaynayno. haddii aad tagu maran joogto oo aad qayliso, dhawaaqaagii oo hadalkaagii xambaarsan ayaa kugu soo jabaq noqonaya. jacaylkuna waa sidaas oo kale. marka hore sii beero, kadibna beertaas gooso. qofkii wax beerta ayuunbaa wax gooste. xeerka 9 ha filanin inay dadku ku wada jeclaadaan. xataa nebiyadii iyagoo nebiye ah maanay wada jeclaan dadku. waa mahuraan inay jirto cid ku nacabi. ibliisba waxa uu aadan nacay intii aan ruuxdaba lagu afuufin ka hor. waxa wax laga xumaada ah in dadka badankoodu ay kugu nacayaan dabciyadaada ee aanay ceebahaaga kugu nacaynin. sida yuusufba dembiga ay walaaladii nacaybkay u hayaan u sababeeyeen ay ahayd qurux badnaantiisuun. nacaybku waa xanuun saaxiib ee ula dhaqan dadka wax nacab sidii dad bukaana. waxay istaahilaan in loo naxariisto ka badan intay istaahilaan in la waajaho oo gaashaanka loo daruuree. xeerka 10 dadku badanaa way isbedelaan, in yar ayuunbaana xaalkii aad markii hore ku baratay ku sii nagaata. xataa innaga ayaa isbedelna saaxiib. ma tiita hadda qofkii aad ahayd 20 sano ka hor. waxayaad akhriday, waad bislaatay, waxna waad baratay. dadka qaar heerkoodii aad ayay kor ugaga sii kacaan, kuwo kalena aad ayay hoos ugaga sii dhacaan. ee qof walba kula dhaqan shakhsiyadda cusub ee uu markaas leeyahay, oo ha kula dhaqmin dabcigii aad markiis ugin horeysay kula qabsatay. xeerka 11 waynu ka simannahay ishaynu wax ku aragno, laakiin aragtida kama sinin. waxaad adigu iska dabiici doqoni garataya u aragto ayay dadka qaar waqti dheer ku qaadanaysaa inay fahmaan. wax adiga fahankoodu waqti dheer kugu qaatayna dadka qaar ayaa judhii ugu horreysayba fahmay. markaaynu wax xukumayna saaxiib, innaga ayaa isxukumayna, innagoo uga shidaal qaadanayna hadda xaaladda aynu ku jirno. sidaa awgeed mowqifka aynu qadiyad ka haysannaa kama turjumo xaqiiqada qadiyaddaas, ee waxa uu ina tusinayaa innaga xaqiiqadeenna. xeerka 12 karaanka dadku wuu kala duwan yahay. qaar ayaa bogdhan xiftiyaya oo aan hal masalo fahmi karin. kuwo kalena 100 masalo ayay fahmi karaan, laakiin hal sadar ma xiftiyi karaan. ciyaartooyda kubadda cagtu 90 daqiiqo ayay ordi karaan. innaguna daqiiqado haddii aynu oradno waynu xiiqnaa. shimbirku wuu duulaa, kalluunkuna wuu dabaashaa. sidaas ayaa labadoodaba loo abuuray. waa waqti lumis in shimbirka la baro dabaasha, kalluunkana duulitaanka. dadkuna waa sidaas oo kale. ee cid ha isbarbar dhigin, adigana in layskaa barbar dhigo ha ka yeelin. xeerka 13 dhib kastaaba way dhammaanaysaa. sidii hore loogu maahmaahayna sii jirtaa sii ma jirto. xilliyada wanaagsani wayna dhaafayaan, xilliyada adagana sidoo kale. sugitaanka farajkuna waa cibaado. kufitaanada adag ee aad dhacdo iyo xaaladaha adag ee ku soo wajaha oo arag inay yihiin marxalado ku soo maray
oo aad ka gudbayso ee aanay ahayn marinka ay noloshaada oo dhamiba raacayso. hakisyada ay waayuhu kugu sameeyaan u arag xaalado marla araga oo aan ahayn saldhigga nolosha. waxna hal qaab kuma nagaada saaxiib. boqor ayaa ka dalbaday wasiirkiisii inuu fargalkiisa ugu qoro weedh haddii uu akhriyo isagoo faraxsan ka murugaysiinaysa, haddii uu akhriyo isagoo murugaysanna ka farxisa. waxa uu ugu qoray xilligani wuu ku dhaafayaa. xeerka 14aad oo hintu waa samarsiis laakiin dadka inaga baxay ma soo celiso. ilmada saydhi haddii aad ku nafisayso oy oo isdhaafi urkutallada laabtaada ka gooxaysa. laakiin waa inaad ogaataa in waxyaabaha qaar marka ay dhammaadaan aanay soo laabasho lahayn. xeerka 15aad deeqsinimadaada xaddaafka ah waa lala qabsanayaa ilaa marka dambe loo arko inuu waajib yahay. saaxiib, dabciyada dadka ee ugu xunxun waxaa ka mid ah inay samahaadu falayso u arkaan waajib ay xaq kuugu leeyihiin. ma kala saari karaan waxaad gacal siinayso iyo waxay waajibka mahuraankaa tahay inaad u samaysaa. ka digtoonow dadka noocaasa, laakiin kuwa samahaaga qadarinaya wax walba dartoodu hur oo waxna ha ka hagranin. xeerka 16aad ha iswaayin adigoo isku dayaya inaad ilaashato dad aanu waayitaankaagu wax dhiba ku haynin. ku dheg oo ilaasho dadka ku jecel. gacalayaashu mararka qaar ayay kuu muujinayaan inay doonayaan inay kaa tagaan, iyada oo wax kasta oo iyaga la xidhiidhaaba ay doonayaan inay nagaadaan adigoo qurina aad og tahay. balse qofka doonaya inuu kaa tago wax kasta oo aad samaysaba ma baajisan kartid ee karaamadaada hawaaye. qofka go'aansada inuu kaa tago isagoo adiga kaa fogaanaya xadhkaha caalamka oo dhanba haddii aad ku xidhxidho ma baajin kartid, laakiin gacalahaaga xadhigga qalbiga ayaa ku filan inuu baajiyo. xeerka 17aad haddii uu ilaahay arrin doono daraaddii qaanuunada caalamka ayuu wax uga beddelaa. saaxiib muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee markii uu naasnuugga ahaa ma aanu qarqoomin. ismaaciil nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ma aanu gowracmin. yoonis nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ma aanu noqon beriga cunto. cadraddii maryan iyadoo aan lamaano lahayn ayay ilmo dhashay. saari iyadoo islaan da'weyna ayay uur qaaday. xeerka 18aad isdhuldhigu meesha haddii aanu ku habboonayn waa dulilnimo. cafiskuna mar haddii aan awood wax layskaga dhiciyo lahayn waa taagdarro. ha samaynin waxyaabo xunxun adigoo isu haysta inaad akhlaaq suuban ku dhaqaaqday. xeerka 19aad farxaddu way ku dhaafaysaa, murugaduna sidoo kale. waxa ugu adag ee qalbiga soo maraa waa inuu la saaxiibo qof baasaysi badan ama dhanka xun wax ka eega oo jawiga kaa cakira. hore ayaa loo yidhi qof farxaana la saaxiib waad farxaysaaye. xeerka 20aad waxyaabaha ay dadku kaa sheegaan waa aragtida ay kaa haystaan ee ha ka dhigin waaqicaaga. inuu qofku yidhaahdo faashil ayaa tahay waa uun aragti aan xaqiiqo ahayn haddii aanad adigu gudahaaga ka aaminsan inaad faashil tahay. maadaama xeerarku yihiin 40 xeer hal barnaamij kuma soo wada ururin karo, sidaa darteed 2 qaybood baan nooga kala dhigayaa. qayb hadda ayaan soo gudbinayaa, qaybta kalena barnaamijka kan xiga ayaad ku daawan doontaan weliba hal maalin kadib ama 2 maalin kadib insha Allah haddii la yiraahdo, maadaama mashquuladu iska yara fara badan yihiin. waxaan rajeynayaa 20ka xeereed soo daawateen inay idin anfici doonaan insha Allah. inta ka sokaysa intaynu kala ku kulmi doono mawduuca kan inoo xiga ama barnaamijkan qaybtiisa 2 oo ah xeerarka ugu xiisaha badan leh. waxaan idin leeyahay nabadino.